كتعسيني أجري كتيمت دوميه كبر كبادر أنا تقام يارد مقتشو إنجنير عبد الرحمن عمر عثمان يريسو وحالو تعسيني يا قويس كيسي يا رور كيسي يلقيسي iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed markaas ay joogaan Ilaahay dambigiisa ha dhaafo Ilaahay jannada firdawsa Allah iyo dhammaan intii uu ka baxay nasabrka iman Allah ka siiyo injineer Cabdiraxmaan waxaan isaqaanay muddo ka badan 20 sano waxaan isla deganay oo isku xafad ka ahayn dalka Ingiriiska degmada Yeele la yiraahdo xaafadda Sabo طبعا معنا هاي لون وآدي هاد مثلا سيراني استدمرت مع كل شقين جرني نسيق وحوش شقين جري كلها دولة هوسة قال عن قيد كلها الصحافة عند كنين أيون وحوكها معمولة قيد كلها إلى عبدالرحمن عمر عثمان طبعا وحان كواغانا إنه هاي من آدي وأخلاق بدن وأفكار بدن مثلا وأحقف احترام بدن ونحريس بدن مركز caawin jiray dadka Soomaaliyeed ee u baahan in la caawiyo dalka degan isla markaasna ka ahay qof firfircoon bulshada dhexdeeda oo jaarida Soomaaliyeed ama dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Ingiriiska ay aad iyo aad u garanayaan wala Cabdullaahi dad badan ayaa dabcan la soo shaqeysay marka waxaad noogu warantaa bal shakhsiyadda marxuumkani maxaad noogu sheegi lahayd adiga ahaan waad mahadsantahay shakhsiyadda injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan wuxuu ahaa nin ay runtii dadka iyo barta ama yaqaana ay aad iyo aad u jecel yihiin oo nin aad iyo aad u dabeecad wanaagsan degan aanan weligii qof aanay wax ka sheeganaynin wuxuu ahaa nin dadka Soomaaliyeed ay aad iyo aad u ixtiraamaan asigan u ixtiraamo wuxuu ahaa nin bulshada Soomaaliyeed uu la noolaa wax badan u soo taray halkan badan ku soo bixiyay in dadka Soomaaliyeed ay wanaag iyo adeeg ay u baahan ay helaan isla markaasna markaas ku xiran dadaalada Soomaaliyeed ee ka jiray dalka Ingiriiska marka maxaa lagu xusuusan doonaa ayaad leedahay marxuumka ummadda Soomaaliyeed oo ka baxay iyo saaxiibadii iyo qoyskii dhammaanba dadka uu ka baxay maxaa marka lagu xusuusan doonaa ayaad leedahay marxuumka insha Allah injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan waxaa lagu xusuusan doonaa inuu ahaa nin dadka Soomaaliyeed magac ku leh aqoon-yahan ah ay wax bartay in dadka Soomaaliyeed ay wax noqdaan dowladnimadooda ay shaqeyso horumar ay gaaraan jecel طبعا qofka taas wuxuu la socdaa intuu joogay hadda gobolka Banaadir oo ka hadlo magaalada Muqdisho waxa uu runtii joog badan ku bixiyay iyo badan in dad badan oo hanti ay lahaayeen guri iyo dhul dib loogu celiyo oo daar badan ku bixiyay dib u dhiska mataqaana iyo soo-celinta magaalada tan waxaa uu dadaalayay in dadka Soomaaliyeed ay gaar ahaan caasimada Soomaaliya ay u noqon lahayd magaalada qurxoon oo magaalada kale adduunka la tartanta aad iyo aad u saaxiibo badan oo wuxuu ahaa runtii aad iyo aad muxtaram ugu ah bulshada Soomaaliyeed guud ahaanteeda sidaas soo jeedinaysa Soomaaliyeed dalkan كان هذا كان ودحيا كان أي رنتي أي سنجرين عيد حكت السنة. هذه أيو مرحوم كإنجنير عبد الرحمن عمر عثمان إنجنير يريسو نوحسي جارة إذن نحمري أم إذن سومري حتى عن لنا وشقة أما وحبرشوا أو وحياة كله ومدي لبعض تصرح لنا وثوق ما كرت مجتمع. طبعا قدومي عبد الرحمن عمر عثمان يريسو هذا ما كي على لندن وجوكني أسير كشقين جري نبت كلها تكملة أنا عن كشقين جري أيضا إصلاح الله برشة شغوين بصابسا. شغوين كان ويستحقلي جرين ضد رأي إيمان جري عن حفيظ عن جوكي ضد كاللغة عاوية ضد أي منطقة أولا سوكاش حكا كلها مرتي أرتاسي رسوك الدوناتو أسير أيان قد بجري وعاون جري أسير هذه أي رسوك ويمادان تصمالي دو عاون قيبها كرد من أسمها برشة ووصول حالي جري دون بالكورنا كوضا قيب قلني مناسبة تبالتقي سبتارك